soo dhawaada walaale. soo dhawaada si sheer garee soo dhawaada soo urura walaal. jimca mubaarak soo dhawaada walaalaal soo dhawaada. ku salaameen abti soo dhawow. ummaddu way daalan tahay. xoolaheenii baa hargeysiya gabiilley buu tegayaa dadku way daaleen. u baahan tahay. okay raallaha marka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal meel kasta daclada adduunka joogtiin jimco mubaarak ayaan ilaayahay nabadi t v. maanta barnaamijkeenu walaalayaal wuxuu ku saabsan yahay aan falanqeynaynaa khudbadii ugu dambeysay madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle. khudbadii ugu dambeysay yiri 2026 isma soo sharaxi karayo inuu xilka madaxtinimada dalka jabuuti wadi karayaba sanad man uma malaynayo. shakhsiyaantiisa waa ninkii indhiina ku daawada ee arkay madaxweyne xasan sheekh ee dalka walaaleyna Soomaaliya markuu dalka Jabuuti yimday. hadda ismaaciil cumar geelle dalka inuu waxbaba hayn oo talada lagala wareegay oo islaantiisu meesha ka taliso 100 goor baan nii sheegnay. indhiinana waad ku aragteen xataa biladii sharafta ahayd oo loo xidhayay madaxweynaha kale uu xidhayay Soomaaliya intuu san ugu xidhi lahaa ayuu halkaan kaga dhigtay garabka. khudbadiisaan falaqayn doonana waxaad ka arki doontiin madaxweynaha dalka Jabuuti oo leh wadanada markii la weydiiyo koorantada wadanada jaarkeena Ethiopia maayna wadanada kale kooranta male. xilka madaxtinimada markuu ordayna moondaagiisii saddexaad iyo moondaagiisii afraad wuxuu ku orday madaxweynaha dalka Jabuuti la kacsaal ayaan ka dhalinaynaa dab baan ka dhalinaynaa kooranto. hadda xilka markuu ordayay energy xataa dhagax buu dhigay wax badan buu sameeyay xataa ma xasuusanay madaxweynihii dalka Jabuuti waxa ku dhacday iloobis. waa ninka arkaya dalkii Jabuutina waxa la wareegaysayba gaar ahaan isaaqi habara walki saanta madaxweynaha Khadraabeeso waa aniga nii sheegay constitutionka dalka Jabuuti ugu sareeya nin habar jeclaa la dhigtay isagu dadka fahmi karaya kelmadan leeyahay fahmi doona waa Fuad Makeup weejaan kan xilka constitutionka dalka Jabuuti ugu sareeya loo dhibay baarlamaankana naag safiya la yiraahdo fariisatay finanskina waa ka korbo la keenay meel waliba nagala dagaaltamaya xataa dhaqaalay dalka. intaan taa u soo noqon walaalayaal aan isdul taagin waxa dalka Jabuuti ka socda inta runta markaad sheegtid runta waad caytamaysaa. waxaad caayaysaa islaanta madaxweynaha caayaysaa waxaad caayaysaa reerka Sacad Muuse la yiraahdo habara wala iyaad caayaysaa marka runta sheegaysid. markaad caytamaysidna waa waalaya lagu oranaya. anagu dhinacan qofna ma cayno waxaan sheegno waa wax la arko. aad iyo aad waan isku soo noqonaynaa walaalayaal sida caadadu noo ahayd gabadheeni in arweelo walaal reer Jabuuti walaal ka dalbada baa mushtarkayga isdul taaga. waqtina waan waayay alaabahayga cusub baan soo dhigi lahaa ilqadaha wax badan waqtiga ii saamixi waayay ee walaalayaal si naba caadi aan uga dalbada gabadha soo dhaweeyay waa gabadh reer Jabuuti aad iyo aad. jaran qabyada deeqaa umadalan qabyada qabweynina maba taqaan qof weeyaan lagu tashado oo aanay igu qaalitaan. walaalayaal shirkeyga reer Jabuuti meel kasta daclada adduunka joogtiin qurbaha iyo inta dalka jooga walaalayaal waxaan tusayaa wax yar oo kooban baan tusayaa. dalka Jabuuti sidaad ogsoontiin mar waliba waxa gubta waa xaafadaha Ciisa waa Kaarteseed waa Karton waa Kaartesiis waa Xumbuli waa Leer xaafadaha Ciisa baa gubta. xaafad kale ma gubto Kaarteseen Kaarte 3 ma gubato
dalka Djibouti meeshii qarmuunka ahayd ee diimiskii xaarku yaallay arxiba ma gubato bas waxaa gubatown waa dhulka ciisuu degayn tayo ujeedadeeda la rabo ana 100 goorna tusnay ana nii sheegnay ciise oo dhan inaa la iskugu soo ururiyo balbala sida Hargeysa oo kale daanta Garxajiska iyo daanta Sacad Muuse dhinacan guudka amba meesha loo yaqaan fooqa Djiboutina dad kale inaa lagu beero afka Ilyas Muuse Dawaale oo wasiirka maaliyadda dalka Djibouti afkiisa ka sheegaya anaani dhageysiyay Nabadi TV anaani daawisiyeena naagtan gabiile laga keenay laga dhigay dib u dejinta iyadoo le dadka waxaan dejinaynaa guriyasha cusub ee ku yaala Bikaduus iyo Bikatres iyo balbala marka walaalayaal u fiirsada mar waliba waxa gubto waa dalka Djibouti siba gaaraan dhulka Ciisa Kartesed Kartesis Kartekad waayo dhulka kale u guban laay waay inay dabku dab mucjiso maahan oo ku kooban dad ku kooban reer ku kooban maahay annagoon Ciise dabka Ilaahay nuguma saladin oo nugumana koobne waay ee loo gubilaayahay dhulkan kale lama rabo walaalayaal waxaan dawladda Djibouti baa gubaysa dad baa gubaya dad baa loo sameeyay dadkan inay gubaan ay barakiciyaan ee isku keenaan balbala hadhow marka guudka iyo fooq iyo meel kasta lagala wareegana balbala inay kaabada soo dhaafin oo xabad la dhaco waana siday ku socoto bal ilaahay walaalayaal anoo ka soo qaatay la voix de Djibouti baan ka filaa guriyaashi gubtay ila eeg wallahi lama walaalayaal waxa waa cadowtinimo loogu bareeray dalka siiba gaaraan majority-ga dalka Djibouti ka ee Ciisa ina guriyashooda la gubo ina dhulkooga la gubo si cadowtinimo xataa bombiyeegu wuxuu yimiday amba dabaqtiistu wuxuu yimiday walaalayaal ummadda Soomaaliyeed ummadda reer Djibouti 8 saacadood kadib buu yimiday markay balanbaleen guriyashu ay baseen kadib buu yimiday 8 saacadood kadib una fiirsada waa imisa sanadood bay ku socotaa inay gubtaan dhul Ciise Djibouti oo dhan baa dhul Ciise siiba gaaraan dadka meelaha Ciise dadku ugu badan yihiin Kartesis Kartekad Kartesed Karton whatever waxa gubanayoon waa inta walaalayaal meel kale ma gubato walaalayaal aqligiina ka shaqaysiya dhalinyarteena xaafadaha ku nool Kartekad iyo Kartesis iyo dhulkan Kartesed war walaalayaal guriyaashiina ilaalsada waxan waa qorshe laga sameeyay Hargeysa gabiile ina dadkiina la barakiciyo oo la iskugu ururiyo balbala Hargeysa qofkii taga garanay daanta Garxajiska iyo daanta Sacad Muuse jira iyo daanta Arabka daandaan Ciise ina la iskugu wala keeno balbala la raba meesha idinku deganideen ina minority nigaga dhiga la raba cusbayaan iyo Arab xagmidan iyo oda caligan iyo la doonaya Centreville-ka wala ina la dejiyo inkana niga nadiifiyo marka walaalaha iyo hurdada ka kaca qofka ogeyno maanta ku sheegay hurdada ka kac 100 goorna waa nii sheegnay oo caadi aad u nasiib dara walaalayaal ninkan iga dambeeya ee Yamaniga ayaa maayirka dalka Djibouti amba duqa magaalada madaxda dalka Djibouti ninkan aad arkaysiin asalhaan ma reer Djibouti wuxuu ka soo jeedaa Yaman ninkan waxaa dhigatay islaanta madaxweynaha ee dalka Djibouti ee dalka maamusha iyadu ayaa dhigatay ninkan hooyadii islaan yar oo gabiile ka imatay Allah u naxariisto oo Jibriil Abubakar ahayd oo Djibouti imatay oday yar oo aabihiya oo Yaman nooga yimid isaguna Allah u naxariisto xaqmiya iyo guursaday marka aabi fooqa Djibouti uu ku ibin jiray jilxado ninkan iga dambeeya marka islaanta meesha keenatay waxa lagu gorgortamayay dalka Djibouti caasimadeeda ina laga dhigo dalka dhan nin Sacad Muuse habara wala yaa la doonayna laga dhigo waa meel ay waxba ka ahayn hadda
boqolkiiba 0.01% ay ka yihiin iyay rabeen maayarkii dalka Djibouti inay noqdaan kadib madaxweynihii waanigiina daawasiiyey uu ka cadhooday arrinta markuu saaxi noqday 4 saacadood buu madaxweynaha dalka Djibouti soo jeedaa markuu saaxiga noqday carabka ka dhigay buu xagmigana Jibriil Abubakar baa dhalay waxay islaanta fuli tiraaho unba la fuliyaa haddaad u fiirsatiin guriyaashan imika la dhisay dalka Djibouti guriyaashan la yiraahdo nasiib siitayaashan nasiib la yiraahdo siitayaashan la dhiso dhan dadkii reer Djibouti weeyaaban yihiin dadka guriyaasha la siinayo dad reer Djibouti ma waa dad laga keenay Arabsiyo waa dad laga keenay Gabiille waa dad laga keenay Hargeysa intuba waa isaaq Saacad Muuse Abara walaalayaal anigu waxaan iska maagay waa waxay indhiina ku aragteen waa waxaad ila aragteen marka walaalahayo waxaan oo dhan waxa la rabaa ujeedada dalka inaan nagala wareego kuwa nagalama wareegi karayaan xabadaday dhacdo way ordayaan waxa la rabaa Djiboutian ee reer Djibouti baan isku nahay dad Soomaaliyan isku nahay iyo walaalahan isku nahay iyo ina xoolaaga lagu cuno walaalaha dadkan waxba iskuma niin walaalana iskuma niin marka hurdada ka kaca carabkana ma kala jeclo hadalkaygan ku soo noqday ma kala jeclo dalka Djibouti inay xaafadaha ciisu gubtaan iyo in kale ma kala jeclo carabkan waxba kama gelin waa mid isagu loo digteenay waraaqad baa la qaaday waa loo digteenaya sidaas samee baa la galay wuxuu yahay baa iska yar xagmiga ay darkaysiin wuxuu yahay baa iska yar walaalayaal war marka waxa malaa walaalayaal madaxweynaha dalkana waa daawasiin doona imika interview walaalayaal waxa malaa hantashano dalkeena aan badbaadino ciiso waxaan dalkeena markii horeba ku badbaadsanay Francisco Ali Caarif la jira iyo canfarto dhan oo le nozonset iyo Francisco walaalayahay dalka waxaan ku badbaadsanay ciiso waa wada ciiso nin caarama dheere war dalkaan badbaadsano dalkeena marxalad xun buu ku jira xaalad xun buu ku jira wallahi oo billahi oo tallahi madaxweynaha dalka Djibouti wuxuu inaka yiraahdaa ma xasuusanayo marxalad xun buu dalku maraya hadduu berito la indhaha Ismaaciil Cumar Gelle isku qabto walaalayaal waxa la rabaa sidii Cumar Calti Qaalib inay ciiso isku galaan ina la yiraahdo nin waliba oo ciiso ciidanka ku jira qorigaaga qaado tolka daafac Franciscuna sidii Central Africa iyo isku kendiri oo nin waliba hubsiini ciiso waan ismarinayna kadibna meesha si dib yara wada caligaaba u qaadan kuwan qurbaha joogay mucaarad iska dhigay wadada qudadaysan iyo kuma maasan bay mucaarad ku yiin maasan baa hooyadood fuulay maasan baa abood fuulay marka iyo kuma maasan bay uqdad u hayaan qof kala ma siyaasadda marka qof uqdad u hayso waxma bedeli karaysi aan qof aan uqdadaysanay ma jiro hatta cusbayaanka wax tabanaya ee islaanta madaxweynihii dalka Djibouti ka horeysay iyadaaba ka horeysaba annagu islaanta Xasan Sheekh ma naqaano islaanta Muuse Bixi ma naqaano islaanta ma naqaano maxay dani matan odagaygi bay ka horeysaa iimaan daraadeed waxay tahay baan dhaliilayna marka walaal dadka gaajoonaya gaajadu dishay iyo doonay dalka beebeen inay ku qabsadaan hadhowna yiraan sida Cumar Cabdi Qaalib war ciiso ninba qabiilkiisa raac aan annagu is dhamayno marka walaalaha hurdada ka kaca madaxweynaha dalka Djiboutina umada shacabka waxaan doonay inaan daawisiyo ila eegaan maxaan idhaa interviewgiisi okay leer daawada inyar Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition spéciale de BBC Info, une édition spéciale consacrée à Djibouti et réalisée depuis le palais présidentiel de Djibouti avec le président Ismaïl Omar Guelleh. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir. Nous allons revenir sur vos 23 ans à la tête du pays. Nous parlerons aussi de la situation politico-sécuritaire dans la Corne de l'Afrique et des conséquences de la crise ukrainienne sur votre pays. Mais avant d'aborder tous ces sujets, regardons ce portrait du président djiboutien signé Raïssa Okoye. Ses partisans le qualifient de sage. Pour ses opposants, il est un dictateur. Âgé de 74 ans, Ismaïl Omar Guelleh, dit IOG, est le président de la République de Djibouti depuis 1999. Après 23 ans déjà à la tête de son pays, il vient d'entamer son 5e mandat. C'est l'un des plus vieux dirigeants africains au pouvoir.
Né en Éthiopie, l'ancien policier succède en 1999 à son... su-aalada yar ugu horreysay la weydiinayo walaalayaan doonaya xalka kooraantada markay tahay bal madaxweynaha dalka Djibouti siduu u hadlayo markii ugu dambeysay interviewga la wareysanayna ciyaal yar oo cusbayana loo soo ururiyay oda cali canfar iyo isaga gadabuursi hal ciisa lama keenin kuwii xataa su-aalada weydiinay marka bal waxaan doonayaa su-aasha quraata Ismaaciil Margel wax badan inuu iloobay waxaan ni tusayaa su-aasha ugu horreysay weydiinayo adoonka wareysanaya bal ila eega annaka waxa La presse d'association. Ismaïl Omar Guelleh, réélu en 2005, 2011, 2016 et puis récemment l'an dernier, avec un score de 97%, insiste qu'il s'agit de son dernier quinquennat. Une partie de l'opposition le soupçonne de vouloir tenter de modifier la Constitution pour se représenter en 2026. Une Constitution qui limite l'âge des candidats à 75 ans. Le chef de l'État dispose donc encore de 4 années pour réaliser son programme, avec l'objectif annoncé d'en faire bénéficier le plus grand nombre de Djiboutiens. On l'a vu, Monsieur le Président, 23 ans à la tête du pays, ce n'est pas négligeable. Vous êtes revenu récemment dans une interview sur vos 4 mandats à la tête du pays. Vous venez d'entamer le 5e. Quelle est votre principale satisfaction? D'avoir contribué à faire de Djibouti un pays viable, respectable, qui prend la cohésion sociale, l'unité nationale et qui fait en sorte que dans une région difficile, faire entendre notre voix. Pourtant, Monsieur le Président, sur les réseaux sociaux, de nombreuses voix appellent à votre démission, sous prétexte que vous ne faites rien pour la population, des opposants qui vivent pour la plupart en exil. Qu'est-ce que vous répondez à vos détracteurs? Eh ben, je leur dis que le pays est là, il existe, il avance. Ce n'est pas parce qu'on est exilé qu'on devient opposant. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas voulu travailler dans son pays qu'on est autorisé à raconter des histoires qui n'existent pas. Si les... walaalayaal waa ninka arkay madaxweynihii dalka Djibouti wuxuu taagan yahay xataa uu iloobo wuxuu isagu ku orday kompaankii dalka madaxtooyada markuu ordayay labadii maxay saddex 3e mondagi 4e mondagi 5e mondag wuxuu ku orday inuu lag asal ka soo saarayo energy solaire oo ka soo saarayo oo kooranta ka dhalinayo uu iloobay on n'a pas de pays qui ont de pétrole bukulay anagu dawlad gas leh manihin kooranka waxaan sameyn karnaa wadanka jaarka Ethiopia notre voisin bukulay Ethiopia baa de kooran leh Soomaaliya digadu ka dhigay Soomaaliya sida bila kooranta walaalayaal cable-ka dhan ee internet-ka dalka Djibouti iyo bilaash ku taga Hargeysa iyo Gabil ee rag Sacad Muuse oo habar awal ka baayac mushtariyaan dawladda Djibouti bay ku qaataan bilaash daraadeed walaalayaal ina awsicid muxuu ina yaro wuxuu gaar maxay kurshbay iyo muxuu ku lacagaystay gorgorada gabadhooda heerka gaarsiisay walaalayaal maruna babemba la isku sheega muxuu kurshbay wayna yaqaanaan dadku dhanna way yaqaanaan gorgorada gabadhooda dhinaca gaarsiisay maxaa imika walaalayaal ka walqeylisiinay Sacad Muuse because waxay rabaan kargoogi dalka Djibouti diyaaradii aan tusayay dalka Djibouti walaalayaal inta dhalinyar ee Gabiley ee loo sameeyay walaalayaal baayac mushtar ee shaqo loo abuuray oo activity loo abuuray waadiyaabaysin tuyar baan tusi doonaa oo publicity oo waxaana sateer oo reer Djibouti baan ka filaa tuyar oo folx ma afweyn in reer Djibouti taan ka filaa waxa publicity u sameynaysaa qolooyin maamul beeleedka oo Hargeysa kargooga marka qolooyinka walaalayaal diyaaradda dalka Djibouti ee Air Djibouti la yiraahdo ee qaranka Djibouti walaalayaal marka online wax lagu dalbado lagaga dalbado Dubai iyo Abu Dhabi iyo whatever dhulkan Carabta diyaaradda cargo walna dad khaas ah dalbanaya oo loo lacagaynayo oo Sacad Muuse walaalayaal diyaaradda waa soo qaadaysa bilaash bay ku soo qaadaysa
online-ka bilaash bay kaargooga Djibouti kusoo qaadaysaa waxay keenaysaa Hargeysa keenaysaa markaaba la qaadaya Gabiley iyo Arabsiya la geenaya because mar waliba diyaaradda Air Djibouti waxay ku jirtaa maxaa ay deficit bay ku jirtaa walaalayaal halkii avantage dalka keeni lahayd amba wax keeni mar waliba waxay ku jirtaa deficit waxa lacagta bixiyana dikada zone franche iyo lacagteeda bixiya inay dad baaba lagu adeegaya oo lacago inay ku sameeyaan iyo baayac mushtaro lagu tala galay madaxweynaha dalka Djibouti-na waka 4 saacadood buu seexdaa war minka waxaan la hadlayaa Maxamed Jaamac baan la hadlayaa General Zakariya la hadlayaa Xasan Saciid Khayran la hadlayaa waxaan la hadlayaa oo kale tourismiga haysta iyaan la hadlayaa ilaahay islaantu khadraabeeso lahayd in yarun buu khamriga cabaayay si sharaf loo cabaa ma khamri baa si sharaf loo cabaa khamri ilaahay baa mamnuucay suuratul aayatul kursi bay ku taala khamrigu inuu ilaahay mamnuucay fusuqa dalka Djibouti ilaahay dalkayga u gargaar ya rabbal alamin waraga waxaan la hadlayaa xilalka sarahaya ee Ciise siiba gaar ahaan mamaasan war waa ninka arkay odaga Ismaaciil Umar Gel xaaladiisa waa ninka arkay waxaad Ciisana sharaf ku yeelanaysiin kuwan iska ogdadaysan iska dhaafa annagu dadka Ciisu dhageystaan baan nahay waxaan qoronka ee wala ogdadaysan iska dhaafa war dalka badbaadiya waxa laga hayaa waqtigii Muuse Nabi Muuse alayhi salatu wasalaam uu Fircoon doonayay inuu dilo kitaabka Ilaahay Quraanka madaaman 30 jis aan dhameyn qoomka Fircoon nin kamida intuu u yimaado ku oranaya Fircoon ma waxa doonaysa inaad dishid nin la Ilaahay qura taajira ma nin la iya doonaysa inaad dishid iyo kale qabiilka qordi ee reer Fircoon buu kamida ninka shakhsiyan waxaan ku soo qaadanaya annagu runtaan isku sheegnaa hadii aanay mamaasan Ciise ka sokood waxaan kale beebanta isku sheegmanin waragina mamaasan baan la hadlayaa ragina mamaasan ee Sacad Muuse abara washa Ciise lugta u qabto war maanta odagii waa ka xaaladiis waa ka Ismaaciil Umar Gel dalkii waa la wareegay ee taa parallel baa la waxeeyay aan annagu soo wargelinay war waa ninka arkay dalkee war dalka badbaadiya war dalka ka badbaadiya reer Umar Carte Qaalib odagii Cali Mahdi Allah u naxariistay ee madaxweynaha ka Soomaaliya isagii Caydiid la isku jabiyay maalintii ugu dambeysay dhimanayay wuxuu yiri waxaan ka calaa buu yiri kuma kalmadaha ka calaa cashin maxaa kamida buu yiri waxa horta kamida koob buu yiri hawiye inay yiraahdeen Cali Mahdina gar buu leeyahay Caydiidna gar buu leeyahay dadka dhalinyarta reer Djibouti ma fahmi karayaan Caydiid wuxuu ahaa jarnaal buu ahaa Soomaaliya waxa ka sheekeynaa dagaaladii sokeeyay ee Soomaalida dadka waaweyn baa fahmi karaya Caydiidna garley Cali Mahdina garley waxaana ka calaa buu yiri ninkii loo oranayo Umar Carte Qaalib intuu qoray radio Muqdisho uu yiri nin waliba ciidanka qabiilkiisa raaco dadkan nala degan waa cadow walaalahayo beritoole waxa iman doona nin waliba ina la yiraaho qabiilkiisa raaco Ciise marka ninka Maxamed Jaamac la yiraaho Xasan Saciid la yiraaho General Zakariya taariikhdu aan qorto Ciise waa dad qalbi fiican waa dad ilow dhow marka maanta dalka badbaadiya dalka ininka gacanta ku haya dalka badbaadiya reer Umar Carte Qaalib dalka ku sii deynina xoolaheeniyo dhan bay foqsadeen ee dalka ku sii deynina walaalayaal taa markaan kaga bax madaxweynaha dalka Djibouti bal waxaan doonayaa inaan nidaawisiyo waxaan nii sheegayo in taanu iskama hadlo anu meesha waxaan leeyahay proof diyaaradda Air Djibouti ee cargo-ga walaalayaal shakhsiyaal loo lacageeyaa jira oo dalka Gabiley ku nool Somaliland ku nool maamul beeleedka siiba gaar ahaan Gabiley siiba gaar ahaan Hargeysa siiba gaar ahaan Arabsiyo oo kamida qolooyinka khadraabeeso kamida walaalayaal ila daawada taniyar oo tiirada afkuweyne anigoo aan Nimcaan Jaamac waxaan ku faraxsanahay inaan ka adeegto shirkadda Gobi Store gaar ahaan qaybteeda online-ka taasi oo alaabta nagu keenta waddankayga Djibouti way ku maasantahay shirkadu siday ugu adeegto macaamiisheeda asxaabtay TikTok-ga waxaan u sheegay dadkayga igu xiran inay u laagrayaan page-kooga Facebook Instagram TikTok qaybtan warqadii elektroniga Gobi Store
qaybtan waa qaybtii surarka rarka qaybtan waa qaybtii cadaraanta anigoo aan nimcan jaamac waxaan ku faraxsanahay inaan ka adeegto shirkadda Gobi Store gaar ahaan qaybteeda online-ka taasi oo alaabta nagu keenta waddankayga Djibouti way ku maas waxaan adarkaysiin walaalayaal diyaaradda waxaa keentay Air Djibouti carbaha ka dalbadaan dhulka carbaha laga dalbadaa baayac mushtarka wareeba waxay doonayaan kadibna diyaaradda cargoga Air Djibouti iyaa keenta walaalayaal Air Djibouti iyaa dalka keenta kan Air Djibouti waa aniga nii sheegay waa mid lagu keenay meesha qabiil waa nin iska joogay Faransiiska waa nin bulwada iska la khamri iyo waxa iska baashaal iyo naag cad oo lala tumto annako kaligeen baan deganahay naagtan doona keeni kareenaa cadaan noqotay ya Spanish noqotay waxa hadana Ilaahay baan ka baqaynaa waxaan aaminsanahay inay jirto maalin maalmaha kamid ah in la xisaabinayo maalin maalmaha kamid ah inaan dhiman doono iyaan ognahay oo mar rabbuka maxaad adduunka soo sameysay beenta iyaan aaminsanahay marka walaalayaal waa ninka arkay dalkii wala la wareey dad badan in dhalinyar yar oo Saacad Muuse habar jeclo waxa ba loo lacagay ciisina gaajadish rag iyo dumarkii nabadii lacag noo soo diray anu baan kama shaqeeyo xoolihiina qaata daabshiil galo xoolihiina qaata waa xoolihiina burta xoolihiina waxaan iloobe walaalayaal barnaamijka inaan sheego lacagtii maxay ahaydeen madrasada walaalayaal haafba ma hayno laba inamood waxay iig soo kala direen $100 oo Canadian waa 2,000 iyo something baan hayaa walaalahayo lacagta ilaa $1,000 oo Canadian ayaan u baahanahay sidaan ugu caawino madrasada ciyaalka ee Quraanka ku dhigtaan walaalayaal waxaan nagala talinayaa waa maalin jimcaana waxaan waa adduun aakhira dambaysa laadiyan dhamayna meeshii lagu weysaysanayay ee dadku ku weysaysanayeen waa wax fiican qof waliba weysaysta dadkii lacagta soo bixiyay hatta quraanjo meesha ka cabta Ilaahay uu nagu naxariisana uu nagu dambi dhaafaya haddii aan dhameynana inta kale madrasada waa sadaqatul jaariya waligeed soconay Ilaahay qabrigu noo nuurin qabrigu noo nuurin Ilaahay wax waliba xun oo naga soo warbaxa Ilaahay uu naga xijaabi walaalayaal sadaqada la baxa sadaqada haddaad ogtihiin waxay tarayso iyo quraanka Ilaahay ku yidhaa waad bixin lahaydeen sadaqada wax badan bay tartaa walaalaha iyo soo caawiyo madrasada taa dhinaca baan kaga baxaya walaalayaal saan nii sheegay Air Djibouti dadka baa loogu faa'iideeyaa waa diyaaradda Saacad Muuse ee diyaaradda qaranka Djibouti ma agaasimaha hatta waxaan soo ogaanoo na tusnay halka contribution-ga qolada contribution-ga amba cashuuraadka Djibouti dadka shandadooga baari lahaayeen qolooyinka Air Djibouti baa baadha nin meesha waxa joogi jira Ciiso Mamaasan oo Badraxaana markaan ku qaylinay barnaamijka Nabadi TV ka sheegnay kii yaraaw ka yiri waraaq gada fakara heer bukay meesha Air Djibouti baa tay dhinaca joog maxaa tahay adigu kadib islaanti khadraabeesa ka qaaday kii xilka because waragun gorgorada ku ooyi waa laga qaaday xilka anaka arkay walaalayaal war dalkan waa la wareegaya walaalayaal baarlamaanka dalka Djibouti naag xun oo qalbi xun oo nin baxar laada qabo safiya la yiraahdo loo fadhiisay waligan bal taariikhda halkee bay ka dhacday inuu Saacad Muuse isaaq baarlamaanka meesha madaxtooyada baarlamaanku fadhiistaan ay fadhiistaan halkee ka dhacday maanta Saacad Muuse inuu yeesho 5 xildhibaan habara wala halkee ka dhacday inay dalka ku yeeshaan 3 wasiir maanta halkee ku dhacday waa wasiirka tacliinta educationka waa wasiirada dib u dejinta dalka ee guriyaasha waa wasiirka madaxtooyada walaalayaal halkee ku dhacday halka maxay ku gaari karayaan dalkana kama 1% heerka maxay ku gaari karayaan war kuwana Ciiso gurguradoodu waa gurgurad dhimatay kuwan gurguradoodu heerka bay gaarsiisay wallahi billahi ma sha Allah kuwayga way ka gurgurada fiican yihiin wallahi kuwayga way ka gurgurad fiican haday gurguradoodu heerka gaarsiisay kuwayga way ka gurgurad fiican okay walaalayaal taa Djibouti dhinaca baan kaga baxaya waxaan ka hadli doonaa wax fara badan ayaan ka hadli doonaa wararta waxaan ka hadlayaa dhalinyarta ama dadka Soomaalida ee ku nool magaalada Minnesota Minneapolis walaalayaal dadka community-ga waxaan naga codsanayaa hablahan yar ee TikTok ku jira ee dhaqan xumada sameynaya ee sida Black American-ka isku diriraya ee qabiilada isku diraysiin siiba gaar ahaan dadka ku nool Minneapolis baan la hadlayaa war ciyaalkan kala qabta
hablahan yaryar ee 18 jirka ee 19 jirka ee dhaqan xumada ku socda war walaalayaal ka qabta kala qabta hablaha yar oo wax u sheega oo hablaha yar dhinacay ka yimaadeen u sheega inay Soomaaliya dagaalo sakooyin ka dhaceen inay hooyooyinkood baan la hadlay inaad soo rafaadeen u sheega hablahan yar waxay yimaadeen waxay ku dhasheen dul ay ku lahayn bay ku dhasheen waxay doonaan bay sameynayaan videoyaasha anshax xumada ee hablahan yar ee Soomaalida laga duubay wadiyaabaysiin iyo ku khamri cabaya gaal xun oo cadaana oo baarale oo haysta ku kalo sakuduudiya oo adoon oo haysta wax kasta iska fuulay habla yar waxba la barin diin la barin oo dhaqan lahayn oo dhaqankii gaalada yeeshay marka hooyooyinkii iyo waalidada ugu mucan war hablahan yar wax u sheega bal videogan daawisiina ayaga say isku dirreen sidii Black American wallahi bilaa wax nasiib darra ila daawada walaalahay Bitches getting torched out here, guys! God walaalayaal war hablahan yar ee dhaqan xumada ku jira war ilaahay laga boqo dadka Minneapolis ku nool wadaadada sheekhiinta war ilaahay ka boqo hablahan yar kala qabta oo hablahan yar u sheega meesha ka yimaadeen iyo dhaqan xumada war dadkan la kala qabto la hawla wala quwwata illa billah taaban ka baxaya walaalayaal waxaan doonayaa inaan baro shalayna laba cishoorteenda ka banaan baxaysay naagtan la yiraahdo Ilhaan Cumar kaninada la cuno amba biliilka la cuno ee ovilka dumarka amba xubinta maxay ilmaha keenaysa tiraysa naagtii keentay cadaanka iyaan doonay inaan daawisiyo oo dila aragtiin oo Djibouti way jirtaa kaninada imika habli yaraa reer Djibouti siiba reer Djibouti dhaqankay qurbaan la leeyahay habli yaraa 18 jirka ilaa maayo naagaha hablaha daadoodu tahay 30 jir ay tahay walaalayaal waa la guursanayaa laba laga dhalayaa daasay ninka waa iska furaysaa xeer qoys waa xeer wada waxaan qurbaan nagu cadibay maxay u guursan laayeen dadku yara anigu imika nabadiid muxuu guursan laayeen ma waxaan ku dhaca waraabe bilaadan baan ay dareen baan waa iska soomay khamiis iyo Monday anagoo Soomaalida kale ee Soomaaliya ku noolaan guursanaan baableena Djibouti maayne halkan wax lagu guursanayo was dibteeda leedahay guurka dhinac waa sida Djibouti ka dhacdo dhan waa guursanaysaa naagtii laba ku dhalaysaa have a nice day bacdaada madow waa iska diyaar waad baxaysaa oo child support bal ugu gelinaya waxaan maxay la walwalayn Soomaalidan iyo ciisaha ila daawada videoga walaalayaal aqooyaan Maxamed Cawaale ayaa soo qaban doona insha Allah ilaa gabar fiican nasi. As founder of the American Birth Control League, which later became Planned Parenthood, Margaret Sanger was no doubt a controversial figure with disturbing views on eugenics, race, and population control. While some argue she even wanted to exterminate the black race, others are trying to erase that part of her past. The Mike Wallace interview. In the eyes of some, Margaret Sanger has been a heroine. In the eyes of others, she's been a destructive force. In her own words, Sanger pushed for a society that limited births to those she deemed fit to have children. I think the greatest sin in the world is bringing children into the world that have disease from their parents, that have no chance in the world to be a human being, practically, delinquents, prisoners. Okay, naagta waa naagtii walaalayaal shakhsiyan kaniinka soo saartay maxaa ahaydeen dib u dhalash kaniinka soo saartay aqooyaan ku soo dhawow barnaamijka Nabadi TV waana ku salaamayaa su'aalna waxaan ka qabaa dabiis waan ku malqayaa leeyahay iyo balaayaal socotee
waan dhamay videogii laydh iyo waxaaba kugu socotay alo alo ها دي واقم دي بقول بقول صعدة وعندما فيديو كان كوري قول بقول صعدة محمد سيفع هاي ولا لا لسان نيشة جو بالكير ورسان لناكتن صوصارت كنينة بلا أولاد ضدك كدكتا سيبا قاران ضدك كنينة دا استعمالها هذي مر قراتهم بدل كريان أم بويل نقطة أم بقبض هادو إن تسبرمي أوفيل بجرسوما هادو أوفيل كتومر كيا دلاشما وحنا حلو سمين ضدك بلاك أمريكان كا سدا population كو لونا قصو إمي كو فرصة قالدي وصور دمانيا قالدي ضدك قالدي وصور دمانيا محمد وان كمال قياسي في عن ادي ولي قلبا كوجو جيرا ادو ير جوجسدا فيعناyd imika كمال قياسي في عن هاي لايف ادو ساس كجي جيرا كباخ لايف كوا لايف با كجيرتا وا سكن سبيكر هاي igu soo celi marka dariiqa ka baxday هاي ولا ليال كل إنير سؤالنا ربعينا كورستو أو كسابسن ناكتن يدبت نوك أنت أدون كردم بدب جارسيس ناكتن والله لما يمك جبوت ولا استعمالها كنينادن حتى دين عن ولا استعمالها ولا ليال دتك قاركود رجع صدق دار رجع عيسى يقدم بيه كهذا اللي قليين ولا ليال صدق دار رجع عيسى حق درك وحرين بقول قربان نيشة قدلك جيبوتي لما حدا عنفر لما حدا عسبيان لما حدا عرب عيسى أمبال حدا دلك جيبوتي نيكا وانين مماسان اللو مؤويانكا كنوا سعد موسى كنوا فورلبي عيسى أمبال حدا because أديجيبا إسكالا سارسارية أديجيبا إسجعلين قعمة وذي جربي وحكو قويان إمك الشيخ مصطفى وحو كليه هاي شيخ مصطفى وحن كجع على وضع غيروان دقيستا آديات بنقدم بيا شيخي وذجركو بوري وذجركو أم بقى عم وذجركو وحي عدو بيكوت هاي بكليه قفكو إن دتكو تفرر رقماننا إن دتكو تفرر رقمان عدو بيوفي عنته إن دتكو من نقضان قعم وذجر وحكو قويانا ولا ليال عدو بيوحي انتهي مركا ولا لا يو وإنكا أركي مالنتي نكا لحدي ان اساسي ان الشهر مركب السوق ولا لا waxaan inii soo galiyay mamaasan baa xiray ku iska dameera oo nacas oo Belgiga ku nool oo iska doqona oo dawladda u shaqeeyo waana yiri furiidkan tagay jabhad baan noqday naagnaag buu u eegay qof qori qaadan kareeyo ma jabhad iska naagnaagta qeeliya aadiyaad maxmed عليكم السلام بل ناكتن محمد أدونكي أردن يدب شخصيان جالسيس وقتها كنينة السمايسي ناكتن أوريجين كيجو محوها أوبجيكتيف كيجو جول كوجو محاي هاي كنينة دا السمايسي سي دتكو لور دليل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نمديدو تمام سوالياشا والسلام يا صح إشراطني وحنا إلى مارغريت سانجر بليرا صح إشراطني وإشراطي طبقة بيسي كله بعد يؤسي لو يرى فرق صح ومثلا دولة يا ولد خاصان تكملوا يوم ثلاثة شهور صح تكملوا ثلاثة شهور بركة دكتور يقول تكتي أريكان كريلة أي أبلع خاصان أفريقيا الله كذي نعم هو قائل هذا يا شيخ هو هذا اللي هو حوقاته يقول شو حوت لقلين كذا شيء شيء إلى يقول بالنسبة لبويسو أي البقاء كوكا والبروس أي بابا ودري هذا يدعنا أنت وبني هل أما لما حكى بدر كلام صح وأي وهو لقلين شو ترك ويرين
waxaa laakiin cajaa'ib la noqotay jabuuti waa tegay waxaa ku arkay baa xafiiska eerooga ku oli jiray صح waa jaabay taageerada markaan arkay class barrow because daaro xagga baa ku arkay ahayd صح waayada dhulka barxada ku arki jiray waa fajacay صح waan galay صح waxaa meesha ka shaqaynaya Jacqueline iyo Jack صح ولكن على فرنسيسكا سديجي عطيها مارتي جاكلين هي حوغا جاكا بركا ويدين وحنيا كان جوب بدي كل ورده ومرة تبيتين لوضع كيران لقي كيرا حبلة كيرين وكان يسوي وحنا لا يعرف وسقاطين جوتو جرايدا إيمانشي بكرتو حيدتو هذا كان يبين بدكي سبعين وبرا marka ujeedada looga dambeeyay waxa weeye inaad taranka lagu yareeyo in dadka ablaha yaryar reeraha xitaa isqaba xitaa uga dadaalin dumarku inay maaragtay ay kolba uu ka soo dhaco waxyaalaha isweydiiyaan maxaa keena ilaahay kuwa isticmaala kiniinada qaata ee sidaada maaragtay uurka iska ilaalaya laakiin kuwa iska ilaalinayaan waa inay gartaan waxa iska ilaalinayaan taran idin hadda u toolana waxay isweydiiyaan maxay u dhalay maxaa keena dhibaatada inay dali weydo because waxaa keenaya kiniinada baaba ayaa dilaya aad iyo tala galay iminka haddaba maxaa loo soo celiyey صح iminka waxa loo soo celiyo horta afrikada dee iskuwa dhibaateeya dictatorkooda soo maraan dictatorkuna uu dhameeya hawshiisa waxaa la yidhahdaa dadkaasiya ubadka ha yareeyaan inay weydaan waxba dhalin waa siaad sheegaysay xeerka qoyskeena khadraabeeta haysata Djibouti oo u talagalay lacag bayna ku qaadataa iyadu wayna aaminsan tahay inay ciyaalku meesha ku baaba'an صح marka waxa weeyaan waa in la iska ilaaliyo iminka xitaa iminka sheekada la isku haysto Royce versus Wade layda صح Supreme Court-iga joojiyey oo mamnuucay waxaa la fasaxay January 2023 صح kun sagaal boqol iyo saddex iyo toddobaatankii yaa la fasaxay صح laakiin cadaankii waxay u joojiyeen cadaankii tarankoogii baa yaraaday صح cid kale looma daraynayo iminka cadaankaa la rabaa in ubadkoogii ubadkii ay iska soo ridin haddii yaraya cadaanku ma dhalayaan صح waxayna iska soo ridayaan maaragtay ubadkiiba iska soo ridayaan madowgii baa dhalanay صح madowgii dadkii kale iyo qaxootigii صح iminka qaxootiga loo soo galayaa waxaa la doona iyaga looma dalahay iyaga qaxootiga iyaga kiniinada la siiyaa iyo dadka madowga hadday xitaa guursadaan mid iyo laba wax ka badan ma dhalaan صح cadankay markaa doonayaan inay u diidaan inay ilmaha iska soo ridaan ujeedada intaa ugu leeg ay u banaan baxaysa katiirada loogu xirwaataa gabadhaas hadda hawada ka baxday gaalka yahuudiga intay faraha iskula gashay khalaasiyadu howlalo loo ololaysaa xitaa istakfurada waxaa la sheegayaba inay xitaa ay soo wada waa tii gabadhii aad soo gelisay sheegaysa inay masaajid kuwa yaroo soomaali oo khaliisiina masaajid bay rabtaa inay u furto aad iyo aad maxamed waan qabaa maxamed maadaama waktigaagii oo gaaban isiisay waxaan doonaya inaan kaaga faa'iidaysto door soomaali oo kalena waad kaga falaqaysay adigoo matalaya nabadi t v aad iyo aad soomaalida edmonton aad ba horta fakuwiin fan iyo kaabda aniga shaksiyaani la socodsiiya waxaad samaysid waxaan kaa codsanayaa khudbadii ugu dambeysay ee Ismaaciil Cumar Geelle oo inaad soo yar rasiimaysid oo ii soo gaabisid ana salaadan isku diyaarinayaa ku soo aqooya horta Ismaaciil Cumar Geelle waraysigiisii horta warbalahay waa nafsidaro sideed u aragtay wallahi waxaan u arkay dad oo bay iska khalkhalsanaa oday hadbeetoola maaragtay wuxuu leeyahay waxa kan duras waxa wuxuu ku leeyahay dowladaha jaarka oo dhan waa daraakooraan buu ku leeyahay waxay iga yaabeen odayga adeerkay mageedu bilaabaan yidhi maxaa dhahay waxa weeye khalaas ilowgii waxa ku dhacay maaragtay dementia صح weli la balqay al-aansa marka ma gaarin صح islaanta iyo turkiyada waa laga arkay way ku dulcunayaan صح iminka waxa lagu leeyahay xitaa meesha adeexada iyaad iska diidanaa sida runta صح dabadeed markii ay adeexada maaragtay inaan meesha aflagaadi iyo waxa badan iska ilaalaya laakiinse dabadeed waraysiga adeexada shiida dabadeed waxa ila soo hadlay dhowr
وأقل كحتى بركو كعبة سوق بيتراكو سوق كذا وصلي نحن يمكن لا يجي سوق بحب ولا واحد حد بيها صح سوق بتيرا قرب سوق بريا أو كون كله كون سوق تعروح على يا شيخ يسكروا هايلا صح أصلا هذا ومن قال سنة كسوق على سنة سكة ضرب الغنى لكن وحلو بعين الناس أبغوا إن ماشي وحلو ورتبوا هذي كله إذا كتير لين guryaha haysatay 20 milyan bay ka aqal ka iibsataan guryaha shalay toolana beel kartoon 20 aqal baa waxaa loo dhawarba ka baayo waxa laga yiraahdaa waa macaaridkii ku yeelaya صح waa tuuqayo ku yeelaya oo laga ku caayo oo propaganda ayaga wala صح odaga class illa lagu helay odayada gobol jilcaba ma sida sheegaysa waxay qaban karaan baaskay وقتي واحدة من الأيام قبل صح إيه كان حتى ما كانوا كلام نقول ما في إحلال محمد جامعة ما كان محمد جامعة وضع الله الشاحي صح ولو السوريين كان قاعدين يقولوا ودي الله الشاحي وهي ما في حالة اشتراك بالبريد وبدل يسافر قطر وبدل يسافر والبس واي بالبريد كسر سياحة يسا إلى يلا لنا وقت يجيب الجرة وقت يجرة عشان وقت ولا كده حسية ولقد وبحال سياحة وبدل كسر سياحة صح وهذا الشيء ذكي إنك تصير الجيبوتي دي واحد لو استقبال يا بارت بقدرين وديارات دي قرن بقدرين كان جوزا مش خيال أو بلقي شعب مو بهني بيلعبوا كان جوزا بحاول وصلني أرجيس على الله قصة قرية حقيقة المبارك العابها أرجيس تجيودا أبو وجهها لتجيش بلا عشور بوضحها ترى أنا ما عشور bureau d'exonération transit bay yidhahdeen marka dalkani odaygani anigu waraysigiisa waxaan ka arkay aad baa uga dhaxay waxyaalo ku hadlay wuxuu ku leeyahay mataqaanaa waxaan gaadnay horumar baan gaadnay dhaqaalihii boqolkiiba 6 ilaa boqolkiiba 8 dhaqaalaha uu ka xayay shiinuhu markii boqolkiiba 6 odayga wax kala loo akrinaya sidee ku kacday UK iyo South ku kacday dadka shaqeeyay buu hadda uu ka leeyahay ninkan uu tusay uu ka leeyahay boqolkiiba 5 dalku waa bilaa dadku ma shaqeeyaan boqolkiiba 20 hadda waa numberka iyagu ay soo qaateen xitaa uu ka badan tahay boqolkiiba 20 waxay ku jirtaa poverty jir uu say maaragtay fikrada ayna faqriga dadku lacag waa dad beerka dhulka ku haya ka dhigantay marka lagu leeyahay poverty line marka poverty ga lagu leeyahay wadadku markii uriyada loo xirin masaal aadiya isagu arrinka uu ka xaraaqaado because wuxuu joogaa wali waagu carraya 99 inta idinka joogto dhan madaxii uu ka masaxday aadiya ma xasuusto wallahi ari ayga baa mala afragaadey waa runta waa waxaan arkayna because dad ka tira waa waxa isaga la baray waa laga xajaa laga ira aday ku caayayaan kuwii tolkaada ku caayaya adiga lagu leeyahay baar macaaridkiiba ku riiraya dhaga u digin waan ignor garaynaynaa kuwii xagga nagu yimaadana waan xelaynaa markuu ka yimida macaaridka ku dharinaya si ay saxajin kule xaggana ay yimaadiin buu kuleeyahay dabeed kuwii horena waa la haystaa waa xelayihiin ashaka wajawgu dhaaba lagu leeyahay fuaad yusufiya sii daayay wuxuu leeyahay laga markaaba la xasuusi wuxuu moodaya in la sii daayo waa hisaabaysa aadiya odagu waa adintor waa iska kax ilaahay maaragtay talabaadna maaragtay waxa meesha lagu haystaa in lagu sii cunaa la rabaa lagu sii xil dheeraysto in lagu dhaco dadka in bulshada lagu dhaco bilbal iminka kartoon 20 qadba guriyaa gubay jagaa gubaya waxaa la doonayaa dadka in laga rabo bilbal la geeyo ilaa 5 sano u dambaysan dadka u sheegayna shalayba marka iyada u sheegayna in iyadu ay meesha ku shaqaysata ay turkeeda ku boobayaan meesha anaga isaaqa ugu jeedinaa baa loo leeyahay iminka ayagii baa noogu horeeyay oo lahaa iyadii baa shalay anaga la lahaayeen anaga doonay inay isaga laga jeediyaan adeeradu dee maantana arkaan inuu odaygii beritoole kulliga ogaan doono marmaraynay odaygii khalaas inuu dimasha ku dhacay bala arkaan maantana laakiin ummadda wejigu tari ilaahay badbaadiya leh amiin 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 aqooyan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عادي ولا ليالك أقويا محمد عوالة ووقت يسي قابنا شخصيا بدي تي في سي ويجان ولا ليال عاد بدو ما سنتين سي عدد النوت تايمر واللي واحد يجلس عنيسين برنامج جمعة واللي بقى أمبا مرمرنا مردي إن شاء الله ولا لو حن نقعد سنة يا صاع عوية مدرسة ومهم ولا ليال الدون ولا جمش كأنه آخر ذا نحن وش قيسنا ويجان وحي هدي أفر مرد صلاة الجمعة تجي ولا ليال جمعة ونكسن جمعة مبارك إن شاء الله وحن نوبل لما جمعيسة إيو لمبر كيجا إيو تلفون كيجا إيميل كيجا واد هيسين نبدي تي في لعجها مدرسة صودرة ولا ليال صور دخصة ده ولا بخلي ما ديسك دايو مدرسة ده عندما إنه باش اللجوء السنة ماشي اللجوء السنة ويك بنقود دمي ويك قرأ تنقود دمي مدرسة ده ويقول ركتيمك هو almost بلا ولا ليال كمان دخصة ده عندما يصنع أجر كواحد في علم الجرو أوكي نبدي تي في سلام الله عليكم